waxa ay ku bilaabatay xafladoodii arooska jawi farxadeed balse markii dambe isku bedelay murugo iyo in la badbaadiyo dadkii halkan ku sugnaa. boosaneer ku hoos yiilay hoolkan oo damaashaadkii arooska uu ka socday ayaa si lama filaana ku dumay waxaana ku daatay oo laga soo saaray xubno ka mid ah caruuska qoyskiisa oo hooyadiis ay ka mid ahayd. 3 dumar ayaa ku dhaawacmay sida uu Shabeelle TV u sheegay Saalax Xuseen Raage oo ah maamul ku xigeenka xarunta Qoobay oo ay xafladu ka dhacaysay. waad u jeedaan meeshan waxa ka dhacay wax oon yar carra jilacday boosaneer ma oo dumin wax dumitaana ma jiro. waad u jeedaan indhihiin ayaa macalinahay waati hadaata aad boogtaan waxa dumay boosaneerka geeskiisa. boosaneerka geeskiisa markuu dumo waa taqaanaa Soomaaliya carradeeda aad ay iskaga jilacsan tahay. waxa lagu shubo waa maqaayad biyaheeda biyuhu unbaa waxay ka qodeen hoos markay hoos ka qodeen ayaa on wax yar dumitaana yimid. ilaahay amarkii 3 qof ayaa ku taraaraxday. 3 qof waan qabanay. 3 qof markii la qabtay waxaan u diyaarinaa anaga markii aan hoolka aan kireyno shaqaalo kormeer ah. gabar kalena waa ka soo qabto afkan hore saarneed waa ka soo baxshay. halka gabar ugu darneed waa gabadhii aan soo aragtay aan ku soo tusay waaye gabadhaas oo dhabarka iyo waayahay waxaan u sii soconaa hadda guriga ay degan yihiin arooska iyo aroosada. xalay xafladoodii ay mashaqada ka dhacday waxaan la socdaa mid ka mid ah wiilasha la dhashay wiilka arooska ah oo hadda bal gurigooda ii wada si aan idinku soo gudbino xaaladda rasmiga ah ee gurigaas ka jirta. Ismaaciil Maxamed Cali iyo Sadri Axmed Cabdilaahi waa lamaanaha ay xalay farxadoodii aqalgalka saameysay mushkiladan. waxay sheegeen hoolka xilliga ay ku soo socdeen in loo sheegay in mashaqadan ay dhacday balse ay ku nagaadeen halkoodii. meesha saad wada ogtiin waxay ahayd hoolka Qoobay waqtigaas ee xafladda socday waxaa joogay familka iyo asxaabta iyo bulshadii meesha ka soo qayb gashay. annaka waa ka maqnay si aan maqlay tada waxay lahayn meeshii dhoobnaayeen arooskii aroosadii laakiin waxaas waa been. annaka waa maqneen meesha ma imaanin qof walba meesha uu isku soo diyaarayo jiray. hadda waad dareemi kartaa meeshii mar hadday musiibo iga dhacday oo tii alle ay imaatay qof walba meeshiisuu ku hakaday. waa ku qanacsanahay annaka khatartii dhacday kama weynin wax kasta tii alle waaye ma fahanta. dadada waxay yiraahdeen arooskii aroosadii meesha waa lagu leeyahay waxaas waxba kama jiraan waa ku ana waa is joogaan ma fahanta. hadda ilaahay maadiis waa saa adiga arkaydid xaafadda waa lagu ladan yahay gabar xoogay walaashay iyo wax saas wax yar isku gaarin aytan insha Allah caafimaad ay u rajeynayna. Nadiifo Xaashi Aadan oo ah caruuska hooyadiis iyo Mulki Cismaan Diiriye oo ehla ah ayaa ka mid ahaa dadkii ay dhaawacyadu fudud ka soo gaareen boosaneerkii dumay ee hoolka xafladda waxaana ku booqanay xarun caafimaad oo lagu dabiibayay. markuu saa ila go'ay gabadhii waa mirqay mid waa la jiiday midna waa mirqday anigana gabdha ay soo jiiday wiila ay yimid dhaxda uga qabtay halkaas uga tuura. gabadha marka salaamayna meesha taagnaada nagu imaatay gabadhii marka salaanay gabadha macnaha maamadan hadii salaantay gabadha waa ka tagay ani waa taagnaa geeska marka fiiriyana qaab waxa maqlay marka fiiriyo meesha waa duntaba waa ila go'day. ana saasti u fiiriyo waa danta meesha damaga ani godka aad meesha xaarka ba tagaba. dhacdadan oo ahayd mid naadir ah ayaa ilaa xalay lagu hadalhayay baraha bulshada iyadoo warar kala duwan ay ka qoraysay warbaahinta gudaha sida ay wax u dhaceen. Maxamuud Soo Faysane TV-ga Shabeelle Muqdisho.